sidaan quruxda badan aan u soo dhaweyno professorkeena professor Shirwac waxaan leenahay professore iyo waftiga la socda ku soo dhawaada Gaalkacyo ardada iyo macallimiinta iyo maaragtay dhaqaatiirta sida quruxda badan ayaguna maanta noola soo dhaweeyay professorkana waa mahadsantihiin waxay lahayd maamuus sidaan ka qurux badan soo dhaweyn intaan ka mudan waan ahaan doontaa insha Allah kulamo dambe iyo fadhiyo dambe ayaan wada yeelan doonaa professorka waxaan rajaynaynaa miisaaniyadda iyo maaragtay fikirkiisii oo maaragtay degmada oo wax badan ugu bedelay 10 sano ka hore inuu kulamo saas maaragtay u balaaran u qaban doono bulshada dhexdeeda professor soo dhawow waqtiga maaragtay iska xilli dambe ah oo duhura ardada oo meel fofo ka kala yimid iyo maaragtay dadka mas'uuliyiinta waxaan leenahay inaan soo dhaweyntaan aan qayb ka qaadano aad u mahadsantihiin geesigeeni horwadinha guusha oo dhan qaasatan naf ahaantayda horumarkayga inuu horteena fadhiyo professor Shirwac soo dhawow mar walbana waan kugu faraxsanahay adigoo noo nabad qaba oo caafimaad qaba inaan mar labaad ku aragno waxayna noo tahay farxad iyo guul sidoo kale waan soo dhaweynayaa martida sharafta leh oo la socota dhammaan sidoo kale ardadeena macallimiinta dhaqaatiirta kuwaasoo in badan qiimo badan isugu jiro magaalada Gaalkacyaba laf dhabar u ah asaguna uu yahay barbaariyahoodii waxaan leenahay professor Shirwac 1 jeer waad ku mahadsan tahay imaashada aad noo imaatay aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweyno professorkeeni aabaheeni aqoonta annagoo ah dhalinyaradii magaalada annagoo ah dadkii deegaanka wax u bartay waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno annaga wuxuu noo yahay aabaheeni aqoontu noo yahay wax kasta uu qabanayay wax kasta uu sameeyay waxaan la diyaar u nahay inaan la garab istaagno waan ku soo dhaweynaynaa mar labaad mar saddexaad soo dhaweynaynaa professor Shirwac oo ah abaabulihii waxbarashadeena maanta oo chance ku haysan inaan ku barano meeshan Gaalkacyo hoygii aqoonta ah asaasihii gobolka dhanka aqoonta ah professor soo dhawow mar labaad mar saddexaad soo dhawow inta ka qurux badan waa sameyn lahayn qoraxdaas ka kula awgeed mar labaad waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha golaha hogaaminta Habargidir professor Shirwac iyo waftiga uu hogaaminayay ee maanta soo gaaray Gaalkacyo xaaladooduna ay ku socotay qaybo ka mid ah imkaaniyaadka gobolka laga qabanayay oo ugu cuslaa in ay soo kormeeraan ama shaqadii meesha mar ay soo ogaadaan waa uga mahad celinayaa cod weyn ma moodaa gabdhahaysay u jeedin anu gabdhaha u jeedaa marka wasiila ninkii hadlaa wuxuu leeyahay waa daalan yahay macna wuxuu rabaa xoogaa yaro in odanimo la qariyo firfircooni baan ka qaadaa markaan aragiina fiiriyo aad baan runtii idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta aad in badan u taagnaydeen oo sidii naloo sheegay 9 ayay ahayd iyo barka inaan halkaan nimaadno markaas weli xamar baan joognay marka ay noo sheegeen intaa inaad taagnaydeen waa la socdaa Allah idin barakeeyo magacyada badan ee iskugu jirtaan anigu weli ardaydii baa ay tihiin marka wax badan baa arki doontaan aan aad ugu faraxsanahay himiladii markii jaamacadda la bilaabayay aan lagu jirtay maanta ayadoo dhaba ayay hor taagantay laakiin dhab ha ahaatee waxaan ku bilaabay qolooyinkii labaad gabdhaha qaarkood waxaan ugu yeeri jiray xildhibaanadii aawe xildhibaankii aawe wasiirka aawe anoo leh mustaqbalka kaalinta inay galaan rajo ka qabay weli banaanka ka taagantii gudoomiyaha ururka dhalinyarada ima qanciso kaliya gudoomiyaha gobolka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha caynkaas madaxweynaha halkaasaan higsanayay weli waqti waa haysataa waa koraysaa laakiin ha ka fogaato intaad banaanka ka habaarami lahaydeen oo inkaan Allah ku riday kii wuxuu sameeyay muxuu waxa nagu sameyn waay adigu qabo samee waa qaban kartaa waana sameyn kartaa waa qaban kartaa waana sameyn kartaa waxa ku tusaala 260 kilomitir odayaal aan shilin haysan ayaa go'aamiyay in wadadaas la dhiso maanta meeshay marayso arkay 18 saac baa loo socon jiray maanta 4 saac bar baa loo socdaa in alla intii ugu dhibka badnayd maanta way soo dhamaad intii dhagax ahayd hadii la iska daayo la mari karayo hadaan laga cabanaynin taayirka dhamaanaya wadadii ahayd hay dhaafin meeshii la oran jiray 8-9 kilomitir u jirtay ceel guula ee baabuurtu geli jirtay maanta 120 baa lagu maraa lacag meel u tiilay markay bilaabayeen ma jirin dadka qaar waxay islaahayn kuwaani
waxa ay duugtooda meel u dhigtaan bay rabaaneen waddo dhisi mahayaan laakiin way rumoodeen maanta waa ujeedaan marka wax walbaba inay rumoobi karaan taasaa kugu daliil wasiir baa noqon kartaan marka aad xilalka ummadda loogu shaqaynayo aada la wareegtaan aqoonteeda waa leedihiin markaasaa laharaad baxaya qolaa su-aalay weydiisay qol magac leh iskugu timid oo aan 2 saacadood xamar igu wareysanayay su-aasha waxay soo gasheen maxaa mudug u hormari weyda siiba gaalkacyo waxaan ku yidhi qof kastaaba sanaduu leeyahay inuu hawsha qabto haddii qofka la qiimeeyo inta uu hawsha waday baahidii jirtay muxuu ka xalliyey bersentajkee marka la qiimeeyo haddii uu qaban waayey inuu nasto walaalkiis ba allah ka dhigay hooyadii dhashay qaar ba waxay yidhahdeen xataa haddii hooyadiis wax qabanayso in lagu bedelo oo asaga dhaamaysa waa dhaami kartaa markii laakiin haddaan idhaahno marka la yidhaahdo waxba ma qasoomin waxaan rabnay in la soo geesa la yeesho ha ree hebel baa lagu jeedaa war ree hebel laguma jeedee dhaliisha dhibaatada taagan in laga hadlo xaq baa loo leeyahy inay ayadu ka hadasho asagu ka hadlo annagu ka hadalno way waxanuuna taabanaya haddii aan reer u danqanno runtaa lumaysa dhabtaa lumaysa waxyaabaha haddii eebbe yidhaahdo aan ka hadli doono adinkuna aad ka hadasheen qaar badan laakiin aan arkay facebooka sida looga daba qaatay oo loo dhaliilay ilaa xad waxaan la gaaray oo in la ceebeeyo dadkii aqoonta lahaa ee caafimaadka ummadda u soo bartay liyaa bac buuxiye maxay bac he yacni waa wax aada looga yeeqsoodo qof kale oo ka daba qaato oo yidhaahdo war waxaad ku hadashay maxay ahaayeen xataa lama arag qofku inuu danqado waxa yani qofka professionkii ummadda ugu shaqayn lahaa marka saa loo ceebeeyo beritana adagoo dhiigu kaa daahaya u tagto tiraahdo dhig joojin isii oo shalay lahayda waxaa ku hadlays maxay ahayn dhakhtarku iyo macallinku midna ma aarsado laakiin dhaawac aad u geysatay wuu xasuusnaanaya marka ka daaya ummadda idiin dagaalamaysa idiin halgamaysa adinka maa waxaan la hadlayaa bulshadaan la hadlaya aada aqoonta u tihiin